horta isbedel insha Allah ta'ala wal kastuba ku kooyo horta wal hadwaaye isbedel khayr qabano ilaahay idin shay rajeeyana way rajeeyaan hadii ilaahay idmo insha Allah ta'ala roobo intuu hada ka saano kulli kin way ku dhawaynaan hada hool karo oo waajibaadiis in gududo oo maleeyana dan ulumina ay nin hadii wali usub markaas ugu leeyano in isu gudud doono saas horta idan ka rajeeyana haddii aragtida ka dhiibto doorashada ka socoto dawlad goboleed koonfur galbeed musharaxiin badan sharaxan sidaas darteed waxaan kula talin lahaa horta marka hore baarlamaanka koonfur galbeed inay lacag iyo qof oo iyaga ka soo jeedo ama qabiil iyo waxaas aan ku heshin laakiin lagu hulo in qofka karaamadiisii aqoontiisa uu leeyahay iyo maamul wanaag iyo qofkii samata bixin lahaa koonfur galbeed sidaas darteed wadooyinka koonfur galbeed soo gal oo dhan waa wada xiran yihiin xildhibaanada golaha koonfur galbeed way ka codsadeen ama un ka baaqee in iisha muxuu ahaay horta isbedelka heliyaan isbedelka walaad maaha wal kalma dhibaato maaha insha Allah ta'ala waxa waay in adduunyada isbedel wal meel ka jar waay isbedelka wal eeda iyo rajeeyana musharaxiin badan way ka sharaxayeen waa ogahay muxtaar roobowna musharaxiinta uu kamid yahay waa la soconaa waa nin deegaanka ka soo jeeda dhulka ka soo jeeda dadka sharaxan iyo isaga farqi u dhaxeeya oo hadda lagu kala saari karo oo oran karo way jiraan ma jiro xaq buu leeyahay uu kartami karaa haddii loo doortana xaq buu yeelanayaa inuu soo xukumo wadanka oo loo dhiibo والله هرت مردود دقلي مرف دقل باو تجو يرس شرح أقوي هندو مربع تجنون شرح حتى ضد كمذا سومالي كبحث بايرين كاسا كوهبون مركي لسمي على بارز أمن قالوا بهاي استجوا للي هاي حتى إن حبض إن الدعين لقى ياب إنه هشيس كأنه أو تنوجو مهم سنة ويا ضد كوادض ولا على هنجا قف كله هشين كرنا قدام بينات هاي وحنو قرنا كلالكو ضد كوهست يا قرنايو marka maadaama aanu garanayna dhibkan haysto qofkiina daweynayno aragno qof in dhalaan oo dhakhtarnimo sheeganayo kuma socon karno 4 sano kale waa la soconaa doorashada koonfur galbeed ka socota iyo sida ololaha u socdaan waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay ka dhigo in isbedel fiican uu ka dhaco xilwaanadana waxa kula dardaarmi lahayn in ay dadka ku doortaan dad aqoon leh oo dadka wax tari kara dalka wax tari kara oo isbedel fiican ay ka shaqeeyaan oo dadka iyo dhulkaba dan ugu jidho baan kula talin lahaa